wardegdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa ku dabaaldegaya deegaanadii shalay ay kula dagaalameen kooxaha qawaarta ee al-shabaab qaasatan tuulooyinka hoostiga deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. nala daawada ciidanka oo si weyn ugu dabaaldegaya goobta ay ku jabiyeen kooxaha qawaarta ee al-shabaab. deyrkii dalkaan nahay xoogii dalkaan nahay maalmaha dagaalkana dabahol cayyabaan nahay dumarkii iyo carruurtana ka difaacayaa nahay gargar duulayaan dalkaan iyo dadkaan annaga iska leh khawaarijna ma ogolin inay magaranaysaa ka arrimiso meel walba Soomaaliya ka mid ah calanka ayaa ka babinaya annagu baan dhiman intaan iyo intii waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dabaaldegaya deegaano iyo tuulooyin dhaca deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanku marka ay shalay ay jabiyeen kooxihii qawaarta al-shabaab ee deegaankaasi soo weeraray saaka waxay gaaf wareegayaan guud ahaan deegaanadii shalay ay ku jabiyeen kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab. waa ciidanka oo farxad iyo damaashaad si weyn uga dul damaashaaday goobihii ay ku jabiyeen nabaddiidka al-shabaab. ciidanka ayaa sidoo kale waxay haatan howlgallo ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin hoostaga deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka ayaa sidoo kale haatan waxa ay gaaf wareegayaan goobihii ay ka soo duuleen kooxaha qawaarta ee al-shabaab. waxayna saad muuqaaladeennaba aad ku aragteen ciidanku ay haatanba ay joogaan gudaha magaalada iyo banaankeedaba. muuqaalkan aad daawateen wuxuu inaga soo gaaray furimaha hore ee dagaalka qaasatan goobihii shalay lagula dagaalamay kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab. waana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn u dabaaldegay guushii shalay ay ka gaareen kooxaha nabaddiidka ah. saad muuqaalkaba aad ku aragteen ciidamadu waxa ay geeraaro farxad leh iyo dhiirigelin ay isku weedaarsadeen goobtii nabaddiidku lagu jabiyey waxayna ciidanka xoogga dalka ay haatan ku sii jeedaan goobo kale oo hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan nabaddiidka al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa hambalyo iyo bogaadin waxa uu u diray ciidankii xoogga dalka ee shalay dagaalka ba'an kula galay kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. jalanka oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe aanan hadda magacooda carabaabayn ayaa waxa uu u qudbeeyey cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka isagoona ku ammaanay guushii shalay ay ka gaareen kooxaha qawaarta ee al-shabaab. dagaalkii shalay Wargaadhi ka dhacay wuxuu ahaa dagaal aad u culus waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jabiyeen kooxdii nabaddiidka ahayd ee al-shabaab ee soo weeraray deegaanka. Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa sidoo kale waxa uu bilad u ballan qaaday geesinimo iyo darajooyin saraakiishii shalay ka hortagay weerarkii nabaddiidka ay ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. jaranka ayaa sidoo kale waxa uu si weyn ugu duceeyey shuhadadii shalay ku shahiiday dagaalkii Wargaadhi isagoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida geesinimada looga hortagay halkaasna ku shahiiday Ilaahay uga baryay jannadii firdawsiyeed inuu ka waraabiyo halka kuwa dhaawacan Ilaahay uga baryay inuu si degdeg u bogsiyo. Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa waxa uu xusay in guud ahaan ciidankii shalay ka qayb qaatay difaaca deegaanka Wargaadhi talisku uu ka warheen doono wuxuuna saraakiishii halkaasi joogto ku ammaanay doorka ay ka qaateen ka hortagii weerarka nabaddiidku ay ka hortageen ay kuna soo qaadeen deegaano ka tirsan Wargaadhi. dagaalkii shalay oo ahaa mid si weyn u culus ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay khasaaro baan ay gaarsiiyeen kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab. haatan aan idinla hadlayo ciidanku waxa ay deegaano Wargaadhi u jira 80 kilomitir ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab. ciidanka ayaa saaki ku dhaqaaqay dhowr deegaan oo lagu tuhunsan yahay inay joogaan nabaddiidka waxayna ciidamadu sidoo kale ay haatan ay idinla hadlayo ay gaaf wareegayaan goobihii shalay nabaddiidku duulaanka ay ka soo qaadeen. guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo ciidamadu ay tuulooyin hoostaga degmooyinka aadan yabaal iyo masaajid Cali Guduud ay ka wadaan howlgallo ballaaran. Cali Fool Dheer ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ciidanku saakay howlgallada ay ugu wadaan. sidoo kale ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa isla saakay waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaanka Cadaan Lixi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. guushii shalay ciidanka ay gaareen ayna ka gaareen kooxda qawaarta ee al-shabaab waxay qabsatay guud ahaan baraha bulshada iyadoo bulshada Soomaaliyeed si weyn u hadalhayaan guushii ay gaareen ciidanka xoogga dalka ay shalay ay ka gaareen kooxda qawaarta ee al-shabaab. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya
mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadin iyo hambalyo waxa uu diray ciidankii shalay ka hortagay weerarkii nabadiidku ay doonayeen inay ku soo qaadaan deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha ayaa xusay in ciidanku ay mudan yihiin bogaadin iyo ammaan waxa uuna sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markasta ay yihiin kuwa u taagan difaaca dalkoodii dadkoodaba mudane xasan sheekh maxamuud oo qadka taleefanka kula hadlay saraakiishii shalay ka hortagtay weerarkii nabadiidku ay ku soo qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wuxuu madaxweynuhu ku ammaanay kaalinta ciidanku ay ka qaateen inay deegaankaasi ka difaacaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab iyadoona jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxdii halkaasi soo weerartay guud ahaan gobolada dalka qaasatan shabeellaha dhexe waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shabeellaha dhexe xilligan ay idin hadlayo waxaa ka soconaya dabaaldegyo xoogan oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shalay ka adkaaday kooxda nabadiidka ee al-shabaab ee soo weeraray deegaanka wargaadhi ee gobolkaasi sidoo kale ciidanku waxay wadaan howlgallo kala baaritaano ah oo si weyn uga soconaya gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankuna waxay khasaaro baan ay gaarsiiyeen dhowrkii maalin la soo dhaafay nabadiidka al-shabaab goobihii shalay ilaa daraad nabadiidka khasaaraha lagu gaarsiiyey waxaa ka mid ah deegaanka jabadgodane oo waayadanba ay ka socdeen dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay gadaal ka kaabayaan kuwa deegaanka waxayna ciidamadu ay jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in jabadgodane iyo deegaano ku dhow ay si xawli uga soconayaan howlgallada ballaaran oo lagula dagaalamaya nabadiidka al-shabaab shabeellaha dhexe guud ahaan basaakay waxaa si dardar looga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamaduna waxay howlgalladaasi ay ka gaareen guul aad u waaweyn markana haddaynu aadno deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in howlgallo ballaaran ciidanku ay ka wadaan tuulooyin hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan macawisleyda ku dhaqan gobolka Hiiraan oo hogaaminayo Cali Jeete ayaa waxay wararku sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxay wararku sheegayaan in ujeedkoodu uu yahay sidii deegaanadaasi ama Maxaasi Moqokori looga xoreyn lahaa kooxda argagixisada ee al-shabaab oo dhowr bilood ka hor gacanta ku dhigtay waxaa goobtaasi gaaray taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona Hiiraan kula kulmay saraakiisha ciidanka qaasatan taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Cali Cagey waxa uu amr ku siiyay in goob kasta ay argagixisadu joogaan inay ku dhaqaaqaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si looga adkaado nabadiidka al-shabaab taliyaha oo ku sugan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay warku sheegayaan in haatanba kulamo uu la yeelanayo saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan waxaana ujeedka kulankaasi uu yahay sidii ciidanku ay ugu dhaqaaqi lahaayeen goobaha kale ee lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la leeyahay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan waxaana kala hadli doonaa sidii dib loogu abaabuli lahaa macawisleyda gobolka Hiiraan dagaalada loogu qaadi lahaa goobaha ay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab taliyaha ayaa dadka deegaanka ka codsaday inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ah waxaana taliyaha ciidanka dhulku xusay in dhawaan ay bilaaban doonaan howlgallo xoogan oo lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ee al-shabaab ee ku dhumaaleysanaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan markuu amarkaasi bixiyay taliyaha ciidanka dhulka haatan ay idin la hadlayo waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan qaasatan degmada Halgan iyo deegaano ku dhow wararka inuu ka helino degmada Halgan ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu doonayo in duulaan loogu qaado goobaha ay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab sidoo kale waxaa goobta ku sugan ama deegaanadaasi ku sugan Cali Jeete oo isna ka mid ah maamulkii hore ee gobolka Hiiraan haddana ah la taliyaha arrimaha macawisleyda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya wuxuuna abaabulkii ugu xooganaa oo ka wada deegaanada gobolka Hiiraan Cali Jeete ayaa waxa uu ku amray ciidanka macawisleyda inay dhaqaaqaan ayna ku dhaqaaqaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan argagixisada al-shabaab guud ahaan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmaha soo socdana waxaa laga yaabaa in ciidanku ay deegaanada argagixisadu ay gacanta ku hayaan duulaano culus inay ku qaadaan si gacanta loogu dhigo goob kasta ay nabadiidku ay la wareegeen qaasatan degmooyinka Maxaas iyo Moqokori ay ciidanku foodu ku hayaan iyadoona la filayo in deegaanadaasi laga faramaroojiyo argagixisada al-shabaab